بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا أحد. walaalayaal dhammaantiin horta waa salaamantihiin meel kastoo aad joogtaan. magacayga waa Kudur Muuse. waxaan ku noolahay dalka Ireland. muhiimadda horta dhammaanteen meesha amaanta aan isku nimid waxa weeyaan waxa la dhaho waa network weeyaan. adduunkana waxa weeyaan network waxa weeyaan lacag uu ka qaalisan yahay dad iyo waqti qof uu ku siiyey waxa weeyaan lacag iyo wax la helo way ka qaalisan waqtiga qaalisan iyo ka qaalisan marka aadan ka maxay taanka qaaliga ah. waxaan rabnaa marka aan idin la wadaagno annaga fursad yar aan helnay jaanis ah oo barnaamijkan runtii dad badan ay ka faa'iideen oo annaga hadda nagu cusub dad badan wax ka qabsadeen aan aragnay aan jeclaanay inaan annagana ka faa'iidno walaalaheena kalena ay ka faa'iideen walaalaha kalena ay dadka ay ka faa'iidaya ay ayagana ka sii faa'iidayaan. waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan waa co-op 50-50 waxa weeyaan waa system la hubo boqolkiiba boqol wuxuuna u shaqeeyaa qaab donation ah. donation macnaheeda waxa weeyaan waa deeq waaye. tusaale ayaa idin siiyey hadda amiin oo jooga Soomaaliya ayaan aniga soo casumay oo aan keenay. amiin waxa weeyaan amiin qof kale uu keenay qofkaas kale uu keenay waxa weeyaan donation ayaan ku leeyahay wax kasta uu gasho waxaan leeyahay 50% boqolkiiba 50 ayaan aniga leeyahay asagana 50 ayuu qaadanayaa. marka waxa weeyaan waa caawin oo jaranjaro ah oo qof ka hooseeyo uu caawinayo. qaabka loo join gareeyo ama qaabka loo galo inta waa wada geli doonaa laakiin waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo on aniga micnaha uu leeyahay programkan lagu cusub runtiidadana ka faa'iideen. waxaa la aasaasay oo la sameeyey 2001 baa la sameeyey. boqolkiiba boqolna waxa aad gelisid waxa weeyaan haddii aad soo geshid ama aad kusoo geltid waxa weeyaan waxbaa helaysaa. waxa ugu yar oo marka aad soo geshid kusoo geliya waxa weeyaan inka yar 50 inka yar $50. haddii aad 6 qof keentid oo aad kusoo geshidna wax la yidhahdo waxaa jira wheelhouse oo abay inoo sharaxi doonto waxaa sharaxi doonta Khadija balse aniga waa taabanayaa. haddii wheelhouse hadda aad screen ku aragtaan oo qofka 25 kusoo galo oo 6 qof keeno wuxuu helayaa waxa weeyaan $75 ayaa kusoo gelaysa oo qof kasta aad soo gelisid $12 iyo bar oo donation ah ayuu kusoo celinayaa. waa jaranjaro kor bilaabanaysa ilaa hoos soconaysa. saharo sheegay waxa weeyaan co-op 50-50 boqolkiiba boqol waa la hubaa oo waa program muddo soconaya haddana socda runtiina waxa weeyaan ka duwan platformyada kale aan arki jirnay oo mataqaanaa lacagaha badan gelin jiray sidii forex iyo waxaas oo ka duwan yahay. waxa weeyaan qarash badan markaa gelayo waana guarantee inaad adiga haddaad dadaashid aad within in yar gudahood mataqaanaa lacag kugu filan amaba in kaa badanba aad helaysid. waxaan rabaa inaan idinla shargareeya marka video yar oo aan sameynay inkastoo uu video ugu horreeyay uu yahay balse waxa weeya videogaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago oo aad ila daawataan kadibna waxaan kusoo wareejin doonaa Khadijo oo ayadana baartigeeda qaybteeda ka qaadan doonta. wixii su'aalaha markaas waana weydiin doontaan insha allah. 50-50 waxay ka caawinaysaa marka aad saa u shaqaysatay aad markiiba meelkaasba aad lacag heshid waa haddii aad dadaal ku dartid macquula in ay jeebkaaga ay soo gasho markaasba in ka yar konto. 50-50 waxay ka caawinaysaa marka aad saa u soo biirsadba in aad markiiba isla meelkaasba aad lacag heshid waa haddii aad dadaal ku dartid macquula in ay jeebkaaga ay soo gasho markaasba in ka yar $50. haddii aad samaysid oo waxay caddeynaysaa haddii aad samaysid 3 tillaabo oo systemkan ah in ku dhow $50,000 ay jeebkaaga soo gasho 30 maalmood gudahood. co-op 50-50 20 sano ugu dambeysay guulo badan ayaa laga gaaray.
waxaana la aasaasay ama la sameeyey 2001 waxaa la sameeyey khubaro runtii guulo badan baa ka gaartay systemkan 50-50 waa platform runtii u shaqeeya qaab deeq ah deeq aad bixisid oo aad qof kale siisid deeqdaas oo adigana kuu soo noqonaysa boqolkiiba konton aad helaysid dadka aad keentidna ay helayaan ama ay ku siinayaan into kaleeto marka wuxuu u shaqeeya waxa weeyaan waa system u shaqeeya dadka ayaga dhexdooda iscaawiyaan oo ay siiyaan waxa la dhaho deeq ama donation mar kasta oo qofka aad keentay uu donation sameeyana waxaa adiga ama qof uu soo galana waxaa mar kastaba adiga kusoo gaaraysa boqolkiiba konton kalena waxay gaaraysaa dadkaas waxaa jira waxa la yidhahda wheelhouse waxa weeyaan leebala ayuu leeyahay waa ilaa 8 level levelka koobaad wuxuu ka bilaabanayaa 25 ka ku xiga 50 ku soo xiga 150 ku soo xiga 200 ilaa 8 level mar kasta oo levelka aad ugu horeeya oo kaleeto haddii 6 qof aad keentid 6daas qof waxay ku siinaysaa 75 haddii 50 ay dowlad garayaan oo ay level 50 ay sameeyaan waa si 3 jibaabaysa oo waxay noqonaysaa 150 ilaa ay inta gaaraysid 12,000 waxaa macquula marka inaad bishii heshid $23,925 inaad monthly ay kusoo gasho meesha sanadkiina aad macquul inaad ka heshid in ka badan 280,000 waxa weeyaan 287,100 ayaa sanadkii kusoo galaysa waxaa jira 6 way ayaa jira oo qofka uu donation ku heli karo markaas waxa weeyaan waa qaab oo ah adigii waa ujeedaa saa screen kaaratid qofka keentid labada qof uu keeno labada qof oo keentay si keento labada qof laba keento waxa la dhaho entry iyo waxa la dhaho one time marka haddii 6 step aad samaysid donationka waad helaysaa waxaan raadis aan ku joojiyo videogan khadiija ayaa runtii intaas si faahfaahayso oo soo diyaarisay marka waxaan kusoo wareejinayaa walaal amiin kadibna aniga dib ayaan haddana kusoo geli doonaa oo hoos noqon doonaa amiin soo dhawaan tahay leader waan kaaga mahadcelinayaa sida wacan quruxda badan ee aad noo tusisay barnaamijka waxaan hadda soo dhaweynayaa dowlaha karaale noqdo leader khadiija oo iyadana nooga hadli doonto qaababka loo kala helayo lacagaha iyo isteeda si lagu kala gaarayo soo dhow leader khadiija waa dhawahay waa mahadsantahay amiin waqtigoona haya darteed maaragtay waxaan maanta insha allahu tacaala bilaabi doonaa inaan walaalaha insha allah uga faa'iideyno maaragtay networkigan cusub oo lacagta laga samayn karo kolley soomaaliya muusa soo gaarin walaalahan waxaan u malaynaa walaalo oo horay networkyaal kale hore usoo arka waa inay ka mid yihiin laga yaabaa hadda se hore u dhac ma samaynayno maanta waxaanu ka hadli doono waa basic iyo sida hoose oo loo bilaabi doono insha allahu tacaala walaalkii waxaan ka codsanaa inuu next third page ii taga insha allah tacaala waqtigoona haya awgis insha allah markaad aad rabtid inaad ka ob 50 insha allahu tacaala aad kusoo biirtid 3 step oo fudeed ah ayaad maraysaa waa maxay 3 step stepka koowaad waa adigaa lagaa rabaa inaad maaragtay istaagtid oo tiraahid waa qaban karaa hawshan waa adigii oo isdiyaariyey oo lesson-kan gatay marka lessonku maxaa waaye lessonku wuxuu kuu ogolaanaya inaad activate noqotid oo aad kusoo biirtid networkigan programkan waa $29 marka waa adigii kaliya shaqsiyanoo meeshas kaga bilaabo stepka oo labaad ayaa marka wuxuu noqon doonaa stepka aad group ku samayn kartid aad maaragtay active aad noqotay maxaad rabtaa marka inaad qabato markaa active noqotay kadib waxaad u baahan tahay inaad heshid 2 qof oo garbahaaga sida A oo B amba cali amba cumar
markaad labadii shaqsi aad soo heshay waa teamwork hawshan teamwork ayay ku soconaysaa markaad soo heshay labadii qof oo garbahaagii ayaad labadii qof si dhiirigelinaysaa oo waxaad u baahan tahay labadii inay mid qof keento labo markay labadii min qof laba keento groupku wuu dhismayaa baaxad weyn ayuu yeelanayaa tiimku wuu kordhayaa marka waxaa gaartay waa adigii oo laba haystay labadaadii oo min laba sii haysato waa 6 qofood marka tiimkii wuxuu noqonayaa tiim 6 qofood ah waxay noo maraysay adigiioo maaragtay lessonkii samaystay waa usoo noqonaynaa lacagtaad ku darsan doontid oo sheerka ah oo company ku darsanaysid ma badno laakiin waa usoo laaban doonaa waxaan hadda idin bilaabaya waa maaragtay adigii iyo aasaaskii hore sidee isku register garayaa sidee maaragtay lesson u helaa kadibna maxaa lagaaga baahan yahay marka insha Allah tacaala maadaama waqtigii uu nahayo darteed page-ka labaad ayaan noogu xiji doonaa marka sidii isku register garaysid oo laba shaqsiyaad heshay oo labadii min laba ay keentay ayaa marka waxaa isku register garaysanaysaa 25 ayaad ka bilaabaysaa waayo maaragtay geedkii orod lagu koro orod ayaa looga soo degaa marka hawsha bilow baa laga bilaabayaa 25 ayaad ka bilaabaysaa waayo 25 markaad ka bilowdid more teamkaagii oo sii kordho more automatically u gashid qaybaha kale ku xiga insha Allah marka 25 ayaad ku bilowday oo maaragtay ku darsatay companygii 25 markaad ku darsatid waa adigii oo dhaxbartamaha taagan min qofkii oo keentay oo A iyo B ka kala xigeen ayaa ayagana 25 iyo 25 ku soo darsaday sidoo kalena labadii ay keentayna 25 iyo 25 ay ku soo korsatay kadibna maaragtay waa wheelhouse-kii iyo maaragtay levelada uu leeyahay maaragtay cop 50 kadib jaranjarada soo ujeedin waa maaragtay koobkii meeshii ugu dambeysay ayaad gaari doontaa insha Allah tacaala haddii dadaal iyo maaragtay asxaab wada jiro oo garbaha is haysta aan noqono insha Allah tacaala oo teamwork la wada sameeyo marka steebyadii oo qaybtii sida aad active iskaga dhigi lahayd sida labadii qof oo kugu xiga active uga dhigi lahayd iyo sidaad maaragtay teamkii oo dhan active uga dhigi lahayd ayaan ka soo hadalnay haddana waxaan ka hadli doonaa levelkee ku bilaabaa wheelhouse-ka horta wuxuu leeyahay levelo kala duwan ilaa 8 level laakiin levelka ugu horeeyo oo laga bilaabo oo maaragtay shirkadda lagu darsado ayaa wuxuu yahay $25 marka $25 ku darsatid 29 aad iskaga dhigtay active-ka aad markaas waxaad keenaysaa laba qof oo A iyo B ah markaad labada qof A iyo B keentid aad markaas waxaad suurtagelinaysaa inaad teamkaagii dhistid adigana maaragtay si aad u haysin teamwork leaderna aad u noqotay qof kastoo meesha imaadana waa team leader because qof kastaba laba ayuu keenayaa marka sidaaba loo laba waa kadibna waxaa waaye teamka 6 buu isku bedelayaa 6 markaad noqotidna maaragtay automatically waxaad enroll u noqonaysaa kontonka markaad gashidna maaragtay waan ka hadli doonaa casharada nooma dhamo maxaa waa caawa waxaa waqtigaan hayo laakiin insha Allah tacaala waan sharixi doonaa step by step caawa waxaan ka hadli doonaa bis waa 25 kontonkana waan ka hadli doonaa insha Allah isbuuca soo socda sidaad maaragtay konton u noqon lahayd iyo kontonka markaa noqotid teamkaaga sidoo kaaga daba imaan lahaa faa'iido badan ayaa ku jirto laakiin insha Allah waan u tegi doonaa marka adigii oo 20 gashtay ayaan hadda kuu sheegi doonaa marka 20 gashatay ayaad waxaa keensatay A iyo B ayaguna waxay soo gashteen meesha 25 iyo 25 calaa qof 25 markay soo gashteen maxaad marka adiga aad maaragtay 25 ka faa'iiday calaa qof waxaad keenaysaa waa 12.50 qofkii adiga kugu hooseeyana wuxuu keenayaa laba qof labadii qofna waxay soo gelinaysaa meesha 25 marka donationka meeqa ka imaanayso waxaa kaaga imaanayso qofkii waxaa ka imaanayso 12 iyo half iyo 50 ka imaanayso markii calaa qof 12 kaaga imaado teamkiina adiga aad kow tahay A iyo B aadna haysatid A iyo B ayaguna ay laba keenaan ayaguna ay maaragtay calaa qof 12 iyo 50 ayagana donation ay kasoo gasho meeshaas ayuu teamkii ku dhismayaa ugu dambeyntiina markaad 6 qofood teamka soo geliso profitkaaga wuxuu noqonayaa insha Allah tacaala qaybtaasna 10 gooni ayay noo noqon doontaa oo aydan si fiican ayaan uga hadli doonaa laakiin hadda waan idin kormarayaa oo maaragtay si fudud ayaan u sheegayaa 75 ayaad maaragtay aad profit ka noqonaysaa insha Allah 50gana waan ka daba tegi doonaa ayadana maaragtay profit kale ayay wadataa
marka teamkii baa sidii u dhistay marka adiga shakhsiyan marka see intee wax kaa soo galayaan dadka kugu xiran se ayaga intee wax ka soo galayaan su-aasha dadka isweydiina waxaa waaye anigii maaragtay profit waaba hele asxaabta iga hooseysana ayaguna say u heli doonaan marka adiga shakhsiyan waad soo gashay sidii baa laba u keentay profitkaagi sidaaba maaragtay donationkaagi 12 baad calaa qof ka heshay ayaguna waa kula midoo markay soo galaan ayaguna waxaa loo baahan yahay inay isbushgareeyaan oo qofkii aad keento waa kula midoo ayaduna waxay u baahan tahay inay qof kala keento ama laba qof keento labadan inay laba kala sii bushgareyso oo min laba ay keenaan ay u baahan tahay doorkuna saas ayuu u dhismi doonaa kadibna maaragtay adigiyaa koreeyo waxbaad heshay kuwii kaa hooseeyna wax way heleen sheekadan waa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan sheekadan waa maaragtay cashirkan hawaaye kambaniga waxaa kambani in gacmaha lees wada qabsada donation la sameynayo wallahi qaybta ingiriiska markay akhrinayo waxaa ku qorneyd adigii wax yar dhiibay ayaa wax weyn ku soo gelayaan mararka qaar waad isweydiin doontaa aniga wax yar dhiiba sidee wax weyn iigu soo geli doonaa laakiin insha allah waxaan ka daba tegaynaa sliceka labaad ayaan codsanayaa insha allahu tacaala oo explanation yar waa intaan hadda kasoo hadlayay walaalaha haddii aad si fiican u fiirisaan adigii waa ku kaa maaragtay ku jiro dhexda qof kasta oo meesha imaado ha kasoo qabto adigii oo dhexda ku jiro ha isdhihin 2 ayaa tahay 3 ayaa tahay mar kastoo adigii dhexda ayaa ku jirta amba leaderka ahaaw amba qof hadda imaada ahaaw amba qof insha allah nagu soo biri doonta ahaaw mar kastoo dhexda ayaa ku jirtaa waxaan lagaaga baahan yahay inaad asxaab kale gadaal ka keento oo shaqo aa qabato ma ahan kambani in aan 25 intaa iskaga soo tuurto aan meesha ka dhaqaaqi doono meesha waa teamwork markaad wax keento waxaa u baahan tahay inaad dad keento insha allah tacaala taasna faahfaahin badan ayaan ka bixi doonaa caawa cashirkeena caawa bis kuma eko cashiro badan ayaan bixin doonaa haddii ilaahay idmo insha allah isbuucyada soo socdo training badanna waa bixin doonaa oo maaragtay asxaabta sii doona marka explanationkii aan hadda bixinayay waa kan example ayaan meeshan maaragtay noogu soo saaray walaalaha screenshot waa ka qaadan kartiin inkastoo walaalkan oo screen record noo sameynayo oo whatsappka noola soo dhigi doono insha allahu tacaala marka number 1 waxaad ka maaragtay ka heshay marka insha allahu tacaala maaragtay 6 siyaabood ood maaragtay ku heli lahayd donationka ayaa meeshan noogu soo qoran maaragtay waa ku kaa adigii number 1 waa kaa number 1 waa maaragtay waa qofkii waa personal then personalkii markuu meesha imaado waxaa ku xigo their personal so their personal waxaa laga wadaa labadii qof aad keento labadii qof markaad keento عفوا عدكم أقام ملي مقلع وحير رالها ولالك وحن قعد سنين إنه موت كلا وحير رالها ها ولا لا هذا marka their personal marinay kabacdina waxa waaye you help from so adigii waxaad heshay adigii waxaad tahay personal key and then their person waa labadii qof oo kugu xigtay then below you help below means yani qaybta hoosaad caawisay so adigii aad kow soo saartay then waxaa caawisay kuwii kugu xigay meeshaas leema ku eka sheekada waxaad sii caawinaysaa kuwaas kuwii kusii xiga sida meesha u weynaata insha allah tacaala ma kusoo celcelinayno oo maaragtay waa ka gudbaynaa kabacdina maaragtay directionka hal jid ayuu noqon doonaa maaragtay mahmaada haddaa idin sheegayana meesha ayay ku qoran tahay iyadoo ingiriisa marka insha allah tacaala marka faa'iidadana waa tanaa oo maaragtay ka heli doontid insha allah co-op 50 markaad kusoo biirtid aad noqotid maaragtay asxaabta teamworkigana aad kasoo mid noqotid insha allah tacaala so one time pocket so hal mar ayaad isbedeli doontaa ayaa maaragtay lacagtaadii hal mar jeeb kusoo geli doontaa hal mar ayaad heli doontaa maaragtay donation aadna filahayn aniga maaragtay qaybta ingiliishka ma aqrinayo laakiin af soomaali ayaan ku boobsiinaa insha allah tacaala unlimited amount donation ayaa heli doontaa waa markaad insha allahu tacaala aad maaragtay steebyada kor maaragtay aad gaarto sida maaragtay 100ka 250ga 450ga there is something called unlimited donation that means a weekly basis wax lahayo ayaa imaanayo oo payment donation ha isdhihin 25 ayuu ku eg tahay dad leebaan keenayaa sheekadu meeshaas bay ku eg tahay isdhihin insha allahu tacaala barnaamijku wuu socod doonaa sheekaduna maray unlimited gaartana waa lagu tegayaa laakiin insha allahu tacaala wax kasta waxay u baahan yihiin sabir iyo dulqaad iyo wada shaqayn ayay u baahan yihiin insha allah tacaala waxaa noogu xigo waa receive unlimited amount money lacag oo maaragtay lagu tirihayn
ayaa insha allahu tacaala kusoo geli doonta oo waxaa waaye haddii aad dadaashay ood maaragtay dadaal muujisay insha allahu tacaala guul ayaad maaragtay gaari doontaa guushiina waa unlimited money payment insha allahu tacaala kambanigan waa global fundraise meel kasta aad joogto ayaad kasoo geli kartaa ma ahan dadka yurub in loogu talagalay ma ahan dadka afrikada maaragtay asiada dhex in loogu talagalay meel allaale meeshaa joogta ayaad kasoo geli kartaa si fudud ayaana laisku register garayaa walaalahan cashiro sidaa ku saabsan insha allahu tacaala isbuuca xiga ayaan maaragtay aad usoo bandhigi doonaa maanta laakiin cashirkeena iyo hadalkeena wuxuu ahaa in lees wada barto leesa soo dhaweeyo kambanigana la fahmo wuxuu yahay insha allahu tacaala aanan maaragtay aan ku dheeraanin walaalkay ayaa igu xigi doona insha allahu tacaala amiin oo xiriiryaha noo siga ayaan insha allahu tacaala noo sii wadi doona barnaamijka aada umahadsan tahay liidar khadiijo waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga iyo sida quruxda badan ee lagu soo jeedisay programka waxaan rajaynayaa dhammaan horta kulley su-aalo way jiri doonaan insha allah laakiin waxaan ka horumarin doonaa waxyar baan dib u noqon doonaa dowlaha iskaali noqo idinkoo raalliya waan idinka codsanayaa liidar khadiijana aaday umahadsan tahay kullan waxaan doonayaa inaad dib igu celiso qaybta yar 25 ama ha qaybtan baan rabaa inaan dib u sharaxo dhammaan way maqlaysiina umaleyna soo dhawo ku maqlaynaa soo dhawo amino ayadoo qaybta mawahabi iyo cabdulqaadir waxaan rajeynayaa in laydin maqlayo cabdiwahaab waa maqlaysaa umaleyna waa lagu maqlayaa soo dhawo abo ها أوجس بقول كيو بقول سودو هروسا هذا ما سنتين أرتا كمباني جان سيدا ليدر قضية جاي نقول شيء وكمباني هذا كل شيء يا ماركتينج عمل وحياة اللي يقانا سوقين تا كمباني جان وكل شيء واحد إذا دونيشن أما تاخ كده هذا النشر كبروفيل كهرباء وها إن لبضة نيكوج لا أساسي horta waxaan rabaa inaan mawduuca waxyar ka qaabto sideen markaan registerka aan sameeyo maxaa anigu faa'iidi karaa maxay directigu macnaha iga faa'iidayaan maxay indirectigu faa'iidayaan maxaa anigu ka helayaa taasaan rabaa inaan dib ugu noqdo horta kow waxaa jira 8 level waad ku bilaabi karta kambanigan sida liidar khadiija ay noogu sheegtay waxaa ugu horeeya levelka loo yaqaano 25 ama waxaa kaloo ku xiga levelka loo yaqaano 50 waxaa ku xiga level loo yaqaano 150 kuma fogaanayno waxaan dib ugu noqonayaa levelka 25 waxaan rabaa inaan isla aragno sida benefitka looga helayo iyo faa'iidooyinka qaabka looga soo saari karo kambanigan iyo haddii aniga aan ku soo biro indirectigayga sideen wax uga heli karaa directigayga sideen wax uga heli karaa qaabkaas baa dib ugu noqonaya مثلا أنا كمبني جالس كدي وانكلي وحن صوب قلي قيبت اللي يقانو شني لبعضهم وحن قرطي عبد الوهاب أما قفل علي صراحة عبد الوهاب وحو صوب قلي قيبت اللي يقانو شني لبعضهم علي نوحو صوب قلي شني لبعضهم وحن ربا إن دي بقول نقطة مجا اللي يقانو كاب 50 معناها بقول كي بقسم مركز الوضع هايو شني لبعضهم مركز لبا الله قيبي وحي نقول إنسا لغاية $1 يبر directly indirectly company lacag ku bixiya waliba eedo isseema macnaha maaha inuu indirectly uu qiimo yar yahay inuu directly uu ka badan yahay waa isku mid that is why a cap loo dhaay marka dhaxda ugu jirta marka 25 aan company ka soo galay Cabdulwahab wuxuu ka soo galay 25 okay 25 ka laba igu qaybi marka anigu waxaan ka helayaa Cabdulwahab $2 iyo bar قضية أنا بقول ليدر كي ليدر قضية إنه waxay kasii helaysaa $12 bar because عبد الوهاب wuxuu ku noqonayaa indirect أنا direct ku ah عبد الوهاب waa indirect marka lacag isku mid ah qofkaas qof buu qaadanayaa macnaha way isla fahmayna sama waxa isweydiinta maro marka sidoo marka company-ga benefit aan iga sameeynaya maadaama donation ay tahay oo lacag isku mid ay wada yihiin oo direct inuu lacag isku mid ay ka tahay indirect inuu isku mid ay ka tahay warta kow company wuxuu ku shaqeyn doonaa wax loo yaqaan waa user online kaas marka
oo lagu sameynaa userkaas markuu ku sameeyo company-ga wuxuu kaa qaadanaya wax loo yaqaano license ama oo lagu active gareynayo macnaha website ama online-kaas horta kow taasaan benefit waxaa kaloo xogta kuu keedinaya ay tahay in everybody kasta company-ga kusoo biiro in mar meel walba uu kala soconayo xogtiisa qaabka loo teamkiisa macnaha ula wadaagi lahaa qaabka benefitka uga helayo waxaasoo dhan baa horta meesha macnaha aad ka arkaysaa sidoo kale waxaa jirta macnaha donationkayga 25 anigoo lacag kale aanan bixin ma kasii gudbi karaa 50 ma uu gudbi karaa yes waa kasii gudbi kartaa oo waxaa jirta qayb oo loo yaqaano markaad teamkaagu noqdaan at least 6 person oo kale donationkaagu uu isbedelaya wuxuu u gudbayaa qaybta loo yaqaano content si markaad everybody kasta company-ga kusoo biiro aad uga qaadato 25%. isla soconaa soma waa isla soconaa aad iyo aad marka taas horta company-ga u shaqeeyaa kolley kuma fogaanayo idra qadiija inta ay wax si fiican usii sharaxday intaa waxay naga eed macnaha isxasuusin iyo macnaha qaab macnaha aan ugu kala qaadanayno benefit iyo shareka taas horta inaan isla garana muhiim waaye waxaa inoogu xigi doonaa Zoom meeting kale insha Allah sida la isku register gareynayo waxaa kaloo inoogu xigi doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo sidee ku start gareyn karaa ganacsigan iyadana insha Allah waa arki doonaa hadduu Ilaahay hadda intaas waxay inoogu ekeed inaan macnaha marka ugu horeyso la isbarto company-gan muxuu yahay magaciisa halkee laga leeyahay muxuu qabtaa qaab noocee u shaqeeyaa waxaan rajeynayaa sidee markaan kusoo biirayne fikirka aan ka haysayn hadda maanta aad caawaan ka haysano fikir kale ka duwan marka waxaan rajeynayaa wixii kuweshinaada soo baxo insha Allah iyadana way idinka qabtiri doonaan lideradana way joogaan waxaan rabaa inaan qof walba wixii su-aal ay qabaan in one by one ay usoo gudbiyaan aad u mahadsantahay